kunahda kwabya mikasiyoma inaski kabahay iftiniyo aqoone wayaha adduunyada waxa lagu abara aragtuda kunahda. Hello, my name is Abdurrahman Mohammed Ahmed. I'm representing the Academy for Peace and Development's Mobile Audiovisual Unit. We're here today at the National Somaliland Library, and this is just the beginning. They've almost completed the construction. We're here with the director and some other guests that are here also that's contributing to the development of the library, the National Library. What we're hoping today is to get the assistance of the communities all throughout to assist us with fundraising in the manner of raising books, bringing books into the library. Right now there's an estimation of about 15,000 books. We're hoping to reach a target of 100,000 books in the next couple of months. So hopefully everybody will participate and assist us with furthering the education of the young adults and the young youth that are here in Somaliland. I'm going to go ahead and pass it over to the director who's going to give you more detailed information. Thank you very much, Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Saad Abdurrahman sheegay inuu ku joognaa xaruntii maktabadda qaranka waad arkaysaa meel wanaagsan u maraysa imika dabaqii hoose ayaa gabagaba ku dhow daaqadihii iyo albaabadii baa inoo hadhay marmarkii wiigana la dhammaystiray marka Facebook saasuu ku dhammaanaya haddii alla yidhaah waxaynu u baahannahay imika waxa weeyaan in intaa hadhay aynu gacmaha isku qabsano qalabkii oo shalfisyadii iyo buugtii iyo kuraastii ay ku jiraan iyo kombiyuutaradii inaynu ka wada hawlgalno qaybta labaadna aynu hawlgalno haddii alla yidhaah waxa aan jeclahay dhammaan dadka halkan naga daawanaya waa xarun cilmiyeed weeyi waa halkaynu ku kobcinaynay aqoonteenna iyo ubadkeenna ku barbaarinaynay waa halkaynu taariikhdeenna ku kaydinaynay waxaanu jecelnahay in qof walba is idhaahdo adiga la'aanta halkaasi librarigaasi dhammaystirmi maayo in qof walba ka qayb qaato buuggaad soo dirta ama kursigaad lacagtiisa bixisaa waxa weeye muddo dheer oo ajar aan go-ayn weeyi waxaan jeclahay inaan iminkana ku soo wareejiyo saaxiibadeeda kale nuura oo iyaduna ariga maraykan ka timid nuura kusoo dhow waad mahadsantahay axmed daahir cilmi horta maanta waxaan ku faraxsanahay inaan soo booqanay rugta kutubta National Library in Somaliland oo axmed director ka yahay the library qiimaha uu nagu fadhiyo waa ogtihiin dadka badan ee waxa khayray Somaliland haday gudaha tahay haday dibadda tahayba waxaan jecelahay horta in gacan la siiyo maanta wuxuu marayaa meeshii ugu xasaasisaneed ee gabagabada ahayd contribution ka bixisana de wuxuu ku galayaa National Library carruurtaadii baa akhrisan doonta waalidka baa akhrisan doona qof kasta oo Somaliland ayaa akhrin doona. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nigo magacayga labaad Xuseen Ali Isxaaq لقينا ودك إنجليزي وحنوانت كوتن الله شعب Somaliland إلى library لعنك جيستان وذلك library هو نماذج كتير ذات كان وحنا أنا كوتن لها إلى فكرة من تعامتها أحد من الزمن كان مالته ينقف قتيس وكفكره لكن ذات كده هاي اللغين بدأت كده ذات عامتها هيدا إلا وضلها لكن يقول حقيقتها لا مالته إلى ذات قريب قلان contribution كاي library أنت كهردي almost ماضي فيس كي فيس كلا بعض نحن نقول كل دبق بعض نقول لكن فيس كي كبعض بعد ماضي يعني وحقيقة لا وقلتنا لا شعب كريس Somaliland إلى لابروني وإستان ووحي كدمان أي كدران لمبر هذا حسابتنا شاشات كانت دونتين وحي لمبر هذا قف كي رمين وساعد كصودرة أو قف كي رمين حسابته أي شيء هايته كصودرة We want to thank everybody that's here, that's going to assist the youth here in Somaliland. We have a lot of people, the diaspora, plus we also want the Somalilanders that are here in Somaliland and everybody abroad, everybody that can contribute to the number that you look at below, and also the address if you want to send the books by carrier. We'd like you to look at the number and the information, and hopefully you will be able to contribute and assist us with making sure that we achieve our goal in producing one of the finest libraries in Eastern Africa. Thank you very much, and thank you for the director. Thank you, and thank you for everybody that assisted us in this project. imika wanaga waxaan taaganay barxadii library hortiisa
waad aragtaan dhulku intuu leegayay waxa weeye ilaa 6,000 square meter weeye waxaanu ka dhiganaa garden aad u weyn oo aad u qurux badan baanu ka shaqaynaynaa iminka landscape-kii baanu samaynaynaa waxay noqon doontaa meel magaaladu ku soo hirato oo la iskugu yimaado oo aad u qurux badan laakiin waxay ku xidhnaanayaan sidaynu hadba dhaqaalo ugu helno iminka cafeteria ayaa laga samaynayaa iyadana waxaanu jecelnahay in shirkadahan waaweyni ay internetka iyagana inoogu xidhaan oo qofku isagoo halkaa geedka hoostiisa iska fadhiya uu haddii la yidhaa wax ku akhrisan karayo fadhiisan karayo waad arkaysaanoo waa magaalada bartankeedii ayuu ku yaallaa waxa weye dhan walba waa laga soo gaadhayaa 4 jiho iskuullada jaamacadaha waa meel xuduntii magaalada Hargeysa ee caasimadda ku taalla marka waxaan jeclay inaad taana aad uga wada bogotaan halkaasoo la beeray oo dhir waaweyn iyo frawlkii iyo wax walba laga beeray oo intaasoo dhallinyaro ay wax ku bartaan wax ku akhristaan aqoontooda ku kobciyaan balwadaha iyo taariibka ay kaga raystaan waynu garan karaynaa qof waloo ka qayb qaatan hadhow waxay u noqonaysaa ajar aan go'ayn oo sadaqadu jaariya weeye waxaan jeclay meeshaasoo qurux badan inaynu 6 bilood kadib ama sanadka dambe dabeeqadiisa ama bartankiisa inaynu isugu nimaadno haddii la yidhaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akaawnadaana shaashadda ayay idin insha allah halkaasaad ka akhrisan doontaan qof waliba wuxuu ku soo diri karaya ku soo diro ciddii soo booqanaysaa soo booqato telefoonnada iyo adreysyada bugaagta lagu soo diraya halkaasay ku qoran yihiin iminka waad arkaysaanoo masaajid aad u weyn ayaa isna jaaliyadda reer gadar ay noo dhiseen oo qofku isagoo wax baranaya wax akhrisanaya inuu haddana salaadihiisa wakhti walba ku tukan karayo waxaanu jecelnahay inay ugu yaraan 12 saacadood maalintii ay furaato 6 cisho haddii la yidhaa inay noqoto xarun cilmi baadhista lagu sameeyo oo dhallinyaradeenna jaamacaduhu ama research samaynaya goob ay cilmi baadhis ku sameeyaan marka waxaanu jecelnahay in qof waliba ka qayb qaato insha allah haddii la yidhaa ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala marka hore magacaygu waa Mustafa Cabdi Qarbooshe waxaan ka mid ahay dhallinyarada jaamacadaha dalka dhigata gaar ahaan jaamacadda New Generation sidoo kale Somaliland National Library muddo 3 sano waxaan kula shaqaynaynay volunteer bulshada waxaan ugu baaqinaa qaybaheega kala duwan hadday tahay ganacsatada hadday tahay qurba joogta hadday tahay qolqol joogta waxaan leenahay meeshan la dhisayo maaha meel dangaara waa Somaliland National Library waa goobtii ugu habbooneed ee laga dhisay National Library dalka 3 jaamacadood baa ku yaala 3 ka jaamacadoodna ma laha library qaran oo ardaydaas ku kulmaan ama mideeya ama aqoontooda iyo researchka ay ku sameyn karaan bartan waa goobtii ugu habbooneyd waa halbowlihii caasimadda Somaliland waxay ku taallaa wasaaradda Boostada Isgaarsiinta dhabarkeega waa halka la oran karo bulshada way isku xiri kartaa 6 degme caasimadda Hargeysa waa halka isku xiri lahayd waa goobtii ugu habbooneed laga sameyn lahaa National Library waxaan leenahay qolqol joog iyo qurba joogba kaalintiinii baa bannaan maanta ciddii ka qayb qaadatay hore uga qayb qaadatay indiina hadhayna inaad ka qayb qaadataan baan rajaynaynaa insha allah anigoo ka mid ah dhalinyarada jaamacadaha waxaan rajaynayaa weliba inaan maximum ku soo saarno dadkii ka qayb qaatay horumarkiisa iyo dhaqaaleyntii ku bixisay taariikhdaana qori doonta waxayna baaldahaba ka geli doonaan in sidii wax uga geysteen waxaanu leenahay bulshada markaa hadday tahay culimada iyo qaybaheega kala duwan inay ka soo qayb qaataan maanta meel wanaagsan buu maraya masjidku inoo dhisanyay waxa loogu talagalay dhismaha wejigiisii koobaad inaanu bal bugaagta la dhigo wixii loo helo wixii kalena loo soo ururiyo dabeetana dhismaha sidaa loogu dhammaystiro wixii ka dambeeyana dabaq saddexaad oo 3 dabaq laga dhigo mustaqbalka dhow aad baan mahadsantahay waxaan leeyahay bulshada ka soo qayb qaata insha Allah liidina karin intaasaan ku soo gudbay alif la kordhabe alif la hoosdhabe alif la goode alif la kordhabe alif la gurre alif la hoosdhabe ya la gurre